wafdi ballaadhan oo uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan mudane cali xamud jibriil islamarkaasina ay wehelinayaan badhasaabka gobolka awdal wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta ee somalilan xildhibaano ayaa maanta kormeer ku tegay mashruuca ballaadhan ee dhismaha wadada isku xidha magaalooyinka boorama iyo baki wafdiga ayaa goobta waxaa ku soo dhoweeyey maareeyaha hay-adda horumarinta wadooyinka jamhuuriyadda somalilan mudane maxamed faarax cabdi iyo shaqaalaha gacanta ku haya hirgelinta mashruucan iyadoo maareeyuhu maalmihii ugu dambeeyey uu ku sugnaa magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal islamarkaasina uu kormeer ku joogay habsami u socodka jidka wadadaasi mas-uuliyiinta ayaa warbixin waxay ka dhageysteen mas-uuliyiinta iyo farsamo yaqaanada mashruuca iyagoo indhahooda ku soo arkay heerka ay marayso shaqadu iyadoo qaybo ka mid a wadada la dhameeyey halka qaybo kalena ay si xawli ah uga socoto daamurdhigistu sidoo kalena meelo ka mid a ay ka socoto caratuulku iyo jarista buuraha si loo diyaariyo jidka loona derdergeliyo dhammaystirka mashruuca